بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دواada warkeena fiidnimo qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah masrax uu ka khudbadeynayay xasan cali khayre oo bam lagu weeraray shacab guryahooda lagala baxay kadibna la gowrgowracay magaalada Balad Xaawo Somaliland oo ku dhawaaqday inay ka baxday heshiiskii saldhigga berbera ee Imaaraadku dhisanayay saraakiil ajaanib oo lagu laayay duqaymo ka dhacay magaalada Jilib al-shabaab oo war ka soo saaray qarax lagu dilay mas'uuliyiin caan ah iyo waare waa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan maamulkiisa oo la laayay iyo xarumaha shidaalka dalka Sacuudiga oo duqaymo la beegsaday qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena fiidnimo ku daawan doontaan haatana ku soo dhawaada isaga fidsan bam gacmeed ayaa lagu tuuray maanta xarunta degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose halkaasi oo uu khudbad ka jeedinayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo booqasho ku yimid magaaladaasi bamkan oo qofkii soo tuuray uu ka baxsaday isla markaana aan la garanaynin ayaa la sheegayaa in uu ku qarxay meel wax yar u jirta halka uu hadal jeedinta ka waday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre sida ay u xaqiijiyeen goobjoogayaal warbaahinta qaraxa bamkani ayaa la sheegayaa inay dhaawacyo fudud ka soo gaareen qaar ka mid ah ilaalada ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegayaa in marnaba uunan halis gelin qaraxuna uu ka yara fogaa balse waxa uu joojiyay khudbadii uu waday dadkii meesha joogay ayaa ka kala cararay waxaana kadib dhacay rasaas xoogan oo ay ku fureen ciidamada AMISOM iyo kuwa ilaalada ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo garan waayay halka laga soo weeraray ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ku qasbanaatay inuu joojiyo ama soo gabagabeeyo khudbadiisii isla markaasna ay ka cararaan goobta uu qaraxa ka dhacay ciidamadiisa iyo kuwa AMISOM ilaa ay hadda lama yaqaan cid qaraxani ka dambeysay iyo sida ay suurtagalka u noqotay in bam lagu la soo dhawaado goob uu Xasan Cali Khayre ka hadlayay walina ma jirto wax war rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska Xasan Cali Khayre oo dhacdadan ku aadan dhanka kale wafdiga ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa markii ay gudaha u galeen magaalada Marka waxa magaalada qaybo ka mid ah lagu weeraray madaafiic hoobiyaal ah inkastoo aan wali la xaqiijin khasaaraha ka dhashay ra'iisul wasaaraha ayaa maalmahan booqasho ku marayay qaar ka mid ah magaalooyinka dalka isagoo oo wada dadaalo u eg ololo doorasho xilli uu qorsheynayo inuu madaxweynaha isu soo sharaxo 2021 xaaladda magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa maanta qasan kadib markii dad xalay lagala baxay guryahooda la laayay dadkan guryahooda lagala baxay oo ahaa 3 qof oo mid ka mid ah ay ahayd haweeney ayaa waxa guryahooda ku weeraray dablay hubaysan 3 qof ayaa qaarkood la gowracay halka qaar kalena xabad lagu dilay sida ay noo xaqiijiyeen dadweynaha ku nool magaalada Balad Xaawo dadkan la dilay ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Xabiiba Cabdiraxmaan Cali oo loo yaqaano Xabiiba Ladan oo ka mid ahayd ururada haweenka ee maamulka Jubbaland ee magaalada Balad Xaawo Xasan Shariif Cabdulle oo Balad Xaawo ka ahaa gudoomiye waaxeed Cabdi Cali Keenan oo madaxii maaliyadda ee degmada Balad Xaawo kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan oo xalay ka dhacay magaalada Balad Xaawo waxayna sheegeen inuu qayb ka yahay dagaalka ay kula jiraan dawladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM maamulka Jubbaland wali ma uusan ka hadlin falkan ka dhacay magaalada Balad Xaawo oo maamul ahaan hoostaga madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta markii ugu horeysay si dadban shaaca uga qaaday in xukuumaddiisa ay ka laabatay saldhiggii military ee magaalada Berbera ay ka siiyeen dawladda Imaaraadka Carabta Muuse Biixi Cabdi ayaa ku micneeyay talaabadan ay kaga laabteen heshiiska dawladda Imaaraadka saldhiggii ay siiyeen in ay ku timid wada tashi dheer kadib markii ay xukuumaddiisu la yeelatay shacabka madaxweynaha Somaliland ayaa hadalkaasi sheegay xilli uu maanta ku sugnaa garoonka diyaaradda ee magaalada Berbera isaga oo ka dhawaajiyay in garoonka Berbera laga dhisi doono uu ka mid noqon doono garoonada ugu waaweyn dunida garoonkii Berbera ee in badan laga murmayay Imaaraadku dhisanayeen ee la lahaa waa garoon ciidankani muxuu yahay ciidankii waan ka wareejiyay oo waa shibil maanta wuxuu noqonayaa habka ugu weyn dunida ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuuna intaasi ku sii darsaday inuu horumarku ku yimaado nabadda intaynu nabadda xoojinayno ee aynu khilaafka yareynayno ayuu horumarkuna kordhaya meel la isku khilaafsan yahayna horumar kama yimaado lagamana gaadho
maamulka Berbera iyo odayaasha waxaan ku bogaadinayaa in nabadda aad u xoojiseen baryahan dambe waana tusaale wanaagsan. hadalkan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ee ku aadan qorshaha saldhigga military ayaa ku soo aadaya xilli uu muran badan bulshada dhexdeeda ka taagan yahay saldhigga xukuumadda kulmiye ay Berbera ka siisay dowladda Imaaraadka Carabta. warbaahinta Sacuudiga ayaa ku soo warantay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ay weerareen oo ay dab qabadsiiyeen 2 warshadood oo kuwa saliidda sifeeya ah oo ay leedahay shirkadda dowladda ee Aramco. muuqaalo goobaha laga soo duubay ayaa muujinaya olol iyo qiiq ka kacaya abqiiq oo ah warshadda ugu weyn dunida ee saliidda sifaysa. weerarka labaad oo ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa isna lagu duqeeyay warshadda shidaalka ee Khurays ee dhanka galbeed ee Sacuudiga. dabkii ka kacay 2 warshadood haatan waa la xakameeyay ayay ku soo waramaysaa warbaahinta dowladdu. abaarihii 4 barqanimo ee waqtiga Sacuudiga, kooxaha nabadgelyada ee warshadaha Aramco waxay bilaabeen in ay wax ka qabtaan dab ka kacay 2 xarumood oo ku yaala abqiiq iyo Khurays, taasi oo ka dhalatay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. sidaasi waxaa yiri afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiga. dabkii 2 goobood ka kacayna haatan waa la xakameeyay ayay intaasi ku dartay. dagaalyahanada Xuutiyiinta ayaa horey loogu eedeeyay weeraro bishii hore diyaarada aan duuliye lahayn ay ku qaadeen warshadda gaaska dabiiciga soo saartay ee Shayba iyo goobo kale oo shidaalka lagu sifeeyo oo bishii May iyagana weeraro lagu qaaday. Sacuudi Carabiya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay la kulmayay weeraro kaga imaanaya dhanka jabhadda Xuutiyiinta Yemen, iyaga oo si gaar ah loo beegsanayo xarumaha shidaalka lagu soo saaray ee Sacuudiga laga leeyahay. abqiiq waxay 60 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed ka jirtaa magaalada Tehraan ee xarunta u ah gobolka bariga Sacuudiga. Khurays waxay ka sii shishaysaa iyaduna 200 oo kiiloomitir, waxaana ku taala warshadda saliidda ugu weyn dalka ee labaad. wararka imaanaya Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in xalay duqeymo dhanka cirka ah laga fuliyay degmooyinka Jilib iyo Bu'aale ee gobolkaasi. duqeymahan oo ahaa kuwa isxiga ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahano iyo hogaamiyayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. saraakiisha sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in duqeynta koowaad oo ka dhacday Jilib ay ku bartilmaameedsadeen guri ay ku sugnaayeen saraakiil ajaanib ah oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. sidoo kalena duqeynta labaad oo ka dhacday Bu'aale ayaa lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab. sida ay saraakiishu noo xaqiijiyeen waxaa duqeymahaasi lagu kala dilay ilaa iyo 2 sarkaal oo Kenyaan ah. dhanka kale waxaa xalay duqeyn kale oo diyaaradaha dagaalka ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya. ila lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in duqeyntaasi la beegsaday xarun ay ku tababaranayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. ma cadda ilaa hadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, welina ma jirto wax hadal oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo ku saabsan duqeymahaasi. war ka soo baxay Al-Shabaab ayaa looga hadlay qarax xoogan oo saaka mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle lagula beegtay deegaanka Galooley oo dhaca inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Al-Shabaab ayaa sheegay in qaraxaasi oo miino ah lala eegtay gaari nooca raaxada ah oo ay la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi. afhayeenka howlgallada Al-Shabaab Cabdicaziis Abu Muscab oo la hadlay Radio Andalus ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid qorshaysan laguna dilay mas'uuliyiintii bartilmaameedka u ahaa una dhacay sidii la rabay. waa sida uu hadalka u dhigay. mashaacin afhayeenku khasaaraha iyo magacyada mas'uuliyiinta lagu dilay qaraxaasi. sida ay xogta warbaahintu ku heshay waxaa qaraxaasi ku dhintay gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee gobolka Shabeellada Dhexe Cabdicaziis Shitaawe, wasiirkii hore ee waaxda ganacsiga Hirshabeelle Sabriye Cismaan, iyo nin lagu magacaabo Xasan Baldos oo ka soo shaqeeyay mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee gobolkaasi. Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro jidgal iyo qaraxyo miino ah ka fuliya wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. dhanka kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si kulul uga hadlay qaraxani miinada ah ee lagula beegtay mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi, kaasi oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Waare ayaa tacsi u diray
ehelada ay ka dhinteen mas-uuliyiinta iyo askarta lagu dilay weerarkaasi. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Aniga oo ku hadlaya afka golayaasha dowladda Hirshabelle iyo kaygaba waxaan tiiraanyada la qaybsanayaa qoysaskii iyo eheladii guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kan Hirshabelle ee ay ka geeriyoodeen mas-uuliyiintii iyo ciidamadii geesiyaasha ahaa ee inaga shahiiday ayuu yiri. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in labada mas-uul samafalaha iyo askartii kale ee ku shahiiday qaraxani waxay waqtigoodii iyo naftoodiiba u soo hureen soo celinta nabadgelyada dalkooda, waxayna dadaal badan geliyeen sidii Hirshabelle ay u hormari lahayd. qaraxan oo ay sheegatay Al-Shabaab ayaa waxaa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka Shabeellada Dhexe Cabdullaahi Shitaawe, wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabelle Sabriye Cismaan Xasan Baldoos oo ahaa samafale iyo 3 nin oo askartii la socotay ahayd.